Purchase your track. Salaam kusoo dhawaada meel kasta joogtiin 252 Guna Corner halkan waxa ka heli kartiin wax kasta ku saabsan kooxda jeclahay Arsenal oo jeedin iyo wax kale ku saabsan sportiga banooniga maadaama jeclahay kubadda cagta u taqaanid. Okay, so waxa ka bilaabnaa kooxda Arsenal hadda maalmahan kore u soo socota hadda waxa raynay 2 games including lagu daro kii oo xal ciyaarnay haddana waxa sameeynaa breakdown of maxal laha sidee u ciyaarna waxaas so hadda waxa ka bilaabanaya gameka Chelsea maadaama aniga aasi ku saaban jooga hadda time difference waa very difficult moogtahay so gameyaasha habeenkii waxa soo diyaa saddexdii ama labadii so aniga markaas waa jiifaa so for example aniga gamekan tartaba cajiib ay leeyahay so hadii la fiiriyo formationka Arsenal gadaal waxay ka ciyaaraysay afar ka bacdina 2-3-1 Chelsea waa 4-3-3 caadi 4-3-3 hadii la fiiriyo labada team hadii la isku geeyo on paper Chelsea anaga xog badan tahay hadii la sameeyo like aniga xataa waa yaabanay I did not expect in a 3-1 ku badino shout out to maxal laha ag football show asiga si fiican oo prediction ku sameeyay maadaama uu dhahay Arsenal 3 ku raanayso saasa ka wada Arsenal you don't know waxa ka heli kartay mugtahay saddex game kan 3 ku raanay aniga waxay la tahay teamka maadaama hadii teamka oo badal fiican ku dhacay maadaama dad badan injury ahayn Gabriel wuxuu la suspended inuu ahaa injury wax ku dhacay David Luiz aado ahay Ceballos benchiga la geliyay Aubameyang xataa benchiga fadhiyo mugtahay so teamka hadii fiirno goal Bernardo ku ciyaaray Leno captainka waxa ahayd kal Bellerin maadaama anigana I hope January inay oo la salgareynaa qof kale lagu bedelayo waxaan jeclahay in lagu bedelo Tariq Lamptey oo ciyaaro Brighton waa wiil fiican oo qatar ah oo right back Kieran Tierney si fiican oo ciyaaro si fiican Rob Holding was ka caadi ahay iyo Pablo Mari gaaga Spanish ka ahay kabacdina dhaxda baalka waxa ka ciyaaray Bukayo Saka waa ninka ugu 15 sano Arsenal teamka hadda oo dushiis ku wado Mohamed Elneny aka Mohamed El Sideways maadaama si fiican u ciyaaray oo respect la siinaa just for today waxaan ka ciyaaray number 10 ka Emil Smith Rowe wiilkan wiil ugu fiican wuxuu la shahabadaa Alexander Hleb maadaama gaaga Belarusian ka Arsenal u ciyaaray hadda maadaama uu tagay Barcelona too early in my opinion meesha ku fashalmay kabacdina Hleb laba maqlin mugtahay Granit Xhaka uu ciyaaray maadaama aan ahayn biggest fan aan jecelahay soo ciyaaro because waa slow gees markuu jeesanayo markasta foul iyo red card iyo balaayo wada laakiin game kan okay u ciyaar si fiican iyo guy kalena iftiinka ahay Arsenal oo dushiis ku wado Gabriel Martinelli so Martinelli iyo maxal laha aniga xilay Bukayo Saka teamka si fiican u ciyaareen hore geeyeen Arsenal hadii fiirsan teamka youth ka buuxo mugtahay dhalinyaro fiican orod badan oo iska aamusan maadaama Granit Xhaka free kick fiican oo dhaliyay waa xaalsiina maxal laha top marks good laakiin like hadii la dhaho would you rely on him meel oo mugtahay maadaama nin oo maxal laha dush laga saari karo Arsenal iyo probably ma ahan maskaxdiisa Sevilla soo qaba korna wax ka yaaray Alexander Lacazette okay so Lacazette goal oo dhaliyay goal penalty la siiyay maadaama Reece James oo maxal lahay Keantini oo maxal lahay luqad u dhigay kabacdina Bukayo Saka goolkiisa khatar ay lahayd asiga wuxuu taagan yahay goolkaneed waa aniga waa magay it was meant to go in like aniga waxay la tahay inuu magin maadaama markin asiga waa left footed right foot oo ku soo tuuray Edward Mendy goolka oo line ku ma joogin mugtahay so laakiin gool qurux badan ay ahayd Xhaka goolkiisa waxay ahayd waa very nice free kick so ku raaxsanahay saas hadii benchiga la fiiriyo benchiga waxa ku jiray Mustafi Ceballos Maitland-Niles Willock Aubameyang injury xiris oo ahay Pepe iyo Eddie Nketiah aniga waxay la tahay teamkaneeti oo hadda ciyaarsi maadaama Chelsea ku ciyaarnay oo ilmaha yar ka buuxeen teamkaas waa in oo Arteta season kan ku sii wado oo first team la aha because ilma yar fiican ku jiro of team ku jiro mugtahay so hadii la fiiriyo Chelsea maxaa lahayd Chelsea teamkooda very strong ay ahayn Edward Mendy ka ciyaaray goolka Thiago Silva experience high PSG ka imaaday Kurt Zouma Ben Chilwell Reece James dhaxdana waxa ka ciyaaray N'Golo Kante Kovacic iyo Mason Mount korna weerarkan waxa uu joogay Tammy Abraham Christian Pulisic iyo Timo Werner like hadii la fiiriyo Chelsea teamkooda 200 iyo waxaasi hordhac
مليون يمروا مقطع أنا كنا أسكوكتا تيم كان قارع كجرا أكتي expensive سكاي of course لكن هذه اللي في اللعبة تيم وتشيلسي وين كرت بدن تعمل له حاجة العكتة اسبند كريان لكن ماتش كانت ماتش في عنه هاي ما دام مارتينيلي يو كينتي نس في عنه سكو عافين بالك عيارين the problem markي for example لكن بيبي هذول عياره بيبي defensively markي له دفاع مسونا قناعة هروق صعبة مركز مقطع markii la dribbling iyo dhaxda ka bax iyo toon dheer ka saar qatar ku yahay iyo waxa seeti cut in sheekada Ian Robin laakiin laba kaasita ma joogo laakiin markii la defense difaac soo celi ama caawi Tierney kaligiisa laba qof oo ku soo ordeyso kan moraaca miskan moraaca mugtahay soo problem kaste hadii la fiiriyo match kaneti si fiican oo ciyaarnay dad qof dhan ma fiilinayn in Arsenal 3 iyo hal ku raanayso maadaama Tammy Abraham ay goal la soo korosay Hudson Odoi oo xabad ku dhaliyay mugtahay offside ahead like VAR VAR loo tagay waxa la lahay waa onside ahay maadaama jilibkiisi waxay leeyahay Hector Bellerin gacantiisa inay jilibkiisa ku mid ahayeen so maadaama waa onside mugtahay goolka dhaliyeen kasi wataas Lampard waxaan aqsanay gaaganayta Arteta maxaa la maadaama loo bixiyay maxaa la lahay Pulis Tapas وعلى توني بيوليس ياسيغا اسكو ميد laga dhigay mugtahay iyo tapas maadaama Spanish yahay laakiin hadii la fiiriyo teamka aniga maxay hadii la dhaho Arteta wali season ma sii lahayd ma sii wadi lahayd aniga hadii la dhaho January hada Arteta waan laga bixina okay because Arsenal loo game araanayna maxaa la taageerayaashana cirkiis gelinayaan ciidamada cirka camal way hilmaamayaan they have amnesia inay madaxa wax loogu dhufto camal waxaan laga raayay 7 games saaxib sabab game aan laga raayay oo streak draw iyo waxaas balay loo joogay red card iyo waxaas mugtahay hadana 2 games araayne so you need to calm down mugtahay so season ko leeyahay hadii la fiirina season ka hadda maxaa waxa joognaa position ki table ka marka la fiiriyo Tommy saddexaad joognaa waxa ciyaarnay Tommy 6 game goal difference keena waa -3 waxaan haysanaa 20 point like hadii fiiristo qofka shanaad waa Aston Villa waxaan naga horeysaa 6 points maadaama 20 point haysano 6 pointna waa 2 games so gamekii waa 3 point mugtahay so labadan next 2 games hadii raayno oo January fiican si fiican u galno waa top 5 oo gali karna easily mugtahay like season kan maadaama corona iyo waxa saytay oo dhacay hadana waa maqlaysi matchal badan la baaji matchka ugu horeeyay wuxuu ahay Everton iyo Manchester City maadaama Manchester City kooxdeeda Gabriel Jesus iyo Kyle Walker على هاي عذرك كورونا so match qual cancel garay mugtahay laakiin hadii la fiiriyo waa gali karna top 5 no problem laakiin Arsenal ma ahan Arsenal koox la aamini karo mugtahay sidii ku sheegay 7 mar laga raayna hal mar raayna ama 2 mar ama FA Cup ama waxa sawin gareynana haduu tii taageerayaashana maxaa la inay madaxa markina wax loogu dhufto camulo hilmaamayanbo mugtahay so anigu waxa u baahanaa structure oo kor ilaa hoos la bedelo team mugtahay dad badan jiro oo alwax inta camal oo mulmuli ku jiro mugtahay waa inay baxaan so matchka City oo Arsenal iyo Chelsea geeska soo leexanayna hadana matchka xali fiirsanay Jans oo helay Brighton matchka City wuxuu ahayd again match oo iska fiican ma ahayn wax xariis boorna ila ahayd maadaama markaa fiirsanay first half waa fiirsaday ka bacdina waa wax ka caajisbeen kulli ma sheegay so hadii la fiiriyo kooxdii teamkii waa isku mid the same team we played the same qof teamkii waxa la bedelay Lacazette waxa lagu bedelay Aubameyang soo noqday laakiin hadii la fiiriyo Lacazette noo soo galay waxay la tahay wuxuu soo galay 60 daqiiqo benchiga ka soo baxay maadaama goolka la mugtay goolka waxa assist siiyay Bukayo Saka waa wiilkii Arsenal hadda of team oo Arsenal kooxda dhabarkiisa iyo maxaa la shoulder ku wada teamka waa gaaganid hadda contract fiican oo dheer la siiyay so kala kuwa markino future of Arsenal hadii la fiiriyo teamku si fiican oo ciyaarnay again waxa ciyaarnay formation ka sameysada 4-2-3 iyo hal wiilka kala yarta maxaa la Emil Smith Rowe si fiican oo ciyaaray gaagan waxa ku jecelahay iskaashada hoos la dhiganaa saaxib waa sheekada Jack Grealish aan mugtahay ama Alexander Haleb waa Rui Costa as major mugtahay so 1-2 wuu ku fiican yahay wareega ma arkaysa soo jijeysanahay kaligiis meel istaaga mugtahay markasta wuu socdaa marka la difaac gadaal u soco qatarun ku mugtahay so Arsenal waxa dhihi lahay Arteta team kaneti waa inaa ka dhigtid number 1 team hadda maadaama your first team choice hadii attackna bedelays marmar Aubameyang bench la gelinayo ama Lacazette isku bedelays waa okay unless injury imaado waxay la tahay Pepe
iyo Willian iyo waxa seeti in they must fight for their position mugtahay because ciyaalkan hadda way imaadeen meesha aan dibay ka dhigay mugtahay so loo magali karo saaxiib like hadii la fiiriyo matches ka boring oo ahay ma very boring first half waa ma wadicin mugtahay baas geeska midig gadaal u soo noqo hor u sooco qof box galay male crossyaal badan oo Korean Tierney soo dhigay laakiin boxka madax qof oo ku dhalay male mugtahay Martinelli madax ku dhali kara laakiin asiga waxa baalku ku ciyaaray mugtahay marmar boxka dhaxdiisa galay laakiin milaheena wax oo markin oo it was not fruitful hadii la fiiriyo best player xalii markii la dhahay anigu waxa dhihi lahay Bukayo Saka ama Emil Smith Rowe maadaama Saka in a seen kara man of the match in my opinion because goalka assist you samay mugtahay so assist you samay so saas oo Bukayo Saka for me man of the match u yahay so gaagaanay waa injury free ina ka dhigno contract fiican nasiino waa inuu hor u sii socdo okay so hadda maxaa fiilinayn hadda waxaa la diila fiiriyo Arsenal next game keena oo next waa fiirinayna formationka lacala qofka la ciyaarana heli subbal okay fixture ka galayna fadlan raali hada maadaama meel kasta iga fiirsanaysiin hadda okay so gameyaal badana hadda ku jiro meeshaan to be confirmed maadaama ingiriiska maxaa lahay oo hadda tier 5 la marooyo maadaama oo xagga security-ga xagga maadaama coronavirus jiro gameyaal badana la baajiyo mugtahay so laakiin hadda qamiista wala ciyaara qamiista waxa ciyaaraysa Tottenham Hotspur iyo Fulham waxaana ku xiga after that Newcastle iyo Liverpool waxay game easy inay u tahay anigana waxa ciyaarayna Axada Sunday so Sunday 3 January waxaana la ciyaarayna West Brom so game kaneti waa West Brom hada dii la fiiriyo coach-kooda cusub waxa waaye Sam Allardyce maxalla coach maxalla iska oo hadii la xaga Baroniga Borno oo plays very boring football mugta laakiin uu yaqaana sidii markino dadka maxallahay loo relegation ka soo bixiyo waa number 1 okay that's why West Brom u doortay markii game fiirsanaysa game markuu bilaabnay last game ay ciyaarayeen gaagaanay gadaal waxa laga ciyaarsiinay 7 of 7 defenders wajida waa Mourinho leader back the bus gaagaanay buska asiga waa sameeybo mugday so game City was going to be very difficult game for us maadaama formation kiisa oo ciyaarno aniga waxa tahay team oo counter attack ku fiican waxa City like hadii la dhahayo penetration iyo waxa City markii teamka oo gadaal noogu dagaan we're not very good waxa jecelnahay in teamka nagu soo qaxaan 1-2 Saka geeska ka orad Martinelli ama Aubameyang goalka boom 3 daqiiqo oo lagu dhaliyo mugtahay like hadii la dhaho gameka waa 7 defender laga ciyaarsiina goalka dhexdiisa lama galayo Arsenal waa joogan Mohamed El Sideways iyo Granit Xhaka iyo baas soo celi midig bidix lagu jiro mugtahay laakiin hadii rabna in ka raayno West Brom waa ina very attacking football ciyaarno pressure waa ina saarno difaac markii Baroniga haystaan waa you must close them down mugtahay pressing very high press al raba so iikana hal Baroniga yaqaanaan waa typical English football cirka la marsiina Baroniga Baroniga dhulka ma bagalayo hadii lacala West Brom hada midfielder tahay I feel very sorry for you saaxib because Baroniga waa English style waxa laga wadaa Baroniga difaaca wuu qabanaa darbo cirka for example qof madax kuma taabanayso goalkeeper ka loo geenaabo hadan again waan lagu soo qaxa so there is no playmaking waxaas ma sameeyaan Sam Allardyce oo joogo waxa waaye corner hadii helno 89 daqiiqo madaxa ku dhalinayna best game kale waa la xira finish ma fahamti hawsha saas waaye so I hope in Imarati not same team ciyaarno hadii la formation ki iyo the only people I badal lahayd because El Neni oo ciyaaraya Jack oo ciyaaraya mugtahay so hadii waxa ku bedeli kara for example El Neni ama Jack waxa ku bedeli lahayd Dani Ceballos personally because Ceballos iyo Jack hadday joogaan Smith Rowe horo ka ciyaara mugtahay waa number 10 so I think we're good because Ceballos na baas fiican oo yaqaana in marmarna wuu jeesada very annoying player asina hadii ma gaarin meesha laga rabay inuu gaaro laakiin waxay la tahay El Neni iyo Jack waa isku mid player hadii la dhaho sida u ciyaaraan El Neni waxay iska orod badan Jack like hadii la dhaho waa very safe mugtahay
Smith Rowe was the only player or number 10 عمل Grealish وحاس ميلها قلقلو. So personally for me أنني أما جاك حلا كبيحي لهاي وحاقل لهاي قاقل لهاي داني سبايوس ما دام وحيرس وكفي يعني through ball وحاسيتي هدي أو جانس نهل لهاي مسعود عزل الكيد لهاي مركز وكفي يعني مقتصية باسكة عادي كوسينا assist لكن مسعود عزل وقتها جاي ما دام وحيلتها جنوري إنه بحايو. هدي اللي فيه overall confident معها أرسنال season كانتي إنه مال في عن جاريسو ما هدي اللي هو 8 هدي اللي هو out of 10 how confident are you as an Arsenal fan حتى هدي لو هاي صدح يهاف أما أفر even أفر too much personally صدح هدي لا هدي مرة سي أو قرب عيارنا و 2 إيمان يسموها 2 out of 5 so until عشان أما لح أما طلبت game اسكو حري كرنو win هدي حتى 1-0 كراينو أوكي شغلة إذا ما هموقتها و 1-0 to the Arsenal وهيستا هيسي جرني لو بكون يصدق حدي وحسيتي because no one قفنا لنا اللي يقول no one used to score against us defense في عنا قمني توني آدمز كيون كولوتوري سول كامبل و دربي هسه موقت هذا نسيم أقول كل حجري لكن هذا المحل ديفندرياشن و حيس ضعيف not very strong محل وقف والن أو ضد كده حبة حي موقت بنونجي يسجل is جاي قاد take them out you know so سأصل ربع لكن until تضوء مسديد game نلقى رايين أو even حتى هذه درو أنت كهلنا هذه for example لح game عيارنا أو أفر game وينجرنا لبنا درو قلنا أوكي إلا تاي because مرمر بنوني especially Premier League سنة كانتي مرة يسموك تمركزتي سنة كان موجودة كورونا هاجروا قفول بوحيرس mentally مسكح المركز لو بريلياشة family كود بحس كي والولايان so no one is free to play good football the only team as في عنو عيارو so أو قطر إيه وليفربول مقتاي other than that team كلا أو حوك سفي عنو بدن ليستر مرمر ليستر إلى تاي إنه تاي team كلا أو second أو سفي عنو عيارو so مانشستر نوا والو جيفا لكن دتك إنه وجانا مانشستر مركز تاسع سماه مقتاي هالجيم على جراينا لكن صدق عمل راينا يعني لكن هوس إكواتان شيء كذا أسين جاي محله برونو فرنانديز أولو يبول بوجبا ماركو سوغا مقتاي لكن هذه اللي بنوني هاد مانشستر وسوسعت هذا ما دام حالي لاست مينت جول كارليان وولفرهامبتون راشفورد لري هذا نوع حيجو جنب بوزيشن كلا بعد مقطع سو تيم أو لقى فيرنايو سو مرمر ده سواء لها تاجرياشن أرسنال مرمر بحياة طبعا مسكح ده أمنيجي مقطع وهل مامان مانشستر هذه لقى راينو أما مانشستر كراينو يا واني رايني ما واتساب يو جيف يمي مع الوجرة لكن إيه كده بحنا هيدا جيس جايز إذا كوا حق جرتين بوزيشن كتميشنات أما تميس ده حد سوري أنا هنا نمبر لبعنا هاي هل جيم أنا قرايسين so what's the matter وأنا اللي قراي كرامو تجيم like how you come back okay so وحديلا تاجرها أرسنال وحريص وأنا ترتيب إسكريكتين don't celebrate too much yeah همبلي يهجلين too much وحنا توابنوني season كوديري هاي هذا وحها هرتي إلا تهاي ما خوا تمي سدح تمي لح جيم العيار مقطع so half season كهاف كيسة اللي ما كراسون like until لقارو فبراير أما مارسو مركز يتيا في ركرنا مقطع future كعما what position قل كرنا مقطع like هذا وحدي لا أرسنال fans مدحين هوس ودقة ورايني لكن هوس ل celebration هوس كده لكن عادي become very rational because برابلانكو نقول أو كلب أرسنال برابلانكو وين وحوايه celebration بلاي قلنا أديداس نواكاسا بالكستن محل فنانات عصب إيو تراك سوت عصب إيو ويكوك هنايان أرسنال فانز لعكتوا بديباي مقتل لعكتها سيدي هدولتين وحلها أو آوي ترانسفير كي وحاسيتي وحال سو استاقا we don't have any money ما دام تراك سوت إيو حاسيت نوكينا مقتل سو كلاك لعك وهاستا لكن حاول نخما مارك قف لعك هاستا لكن أو مال جيب وحكسو إيبسد مقتل هذا the saying وحوايه if you buy cheap you buy twice صاحب فهمت هذه واحد رقيق سوق قدرت لا بجرا دي بس لعك ما دام وكاجبه مقطع سو ساسا دي لاي سو تيم كانوا ارسنال هذا هور اوسوقتا وحير لكن هو small step لابد تلعب قادني لكن اسكوقتا ارسنال مقطع هذا waxaan laga raay karaa West Brom saddex ama afar goal who knows I don't know I'm not very confident okay ساسا كو إكينا هذا شوغا نتوا 252 Guna Corner كوسو دوادا ميل كستا إيجي في السنة I hope وانا enjoy جريسين فضلا لايك سبسكرايب شير كومنت إنكو سوقر وحياكو لطهي باي باي صاحب